بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كسو دواذا مركلة إيا برنامج كأني عافماتك إيه دكتور منه طبيب يقن qof bawaayihiisa ilan meel ku hayo waynu kala maqnaynay miyaan ku warramay weli maanta waxaan idin wadaa qiso xanuun badan oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis, Minnesota. waxaynu dhahaynaa magaceeda waxaan u bixinaynaa Xaliima Yaray. magaceeda runta ma sheegayno si aan u ilaalino damiirka wanaagsan ee takhtarnimada. qofka shakhsiyadiisa in la shaaciyo ma aha, laakiin dhibaatooyin qofkaas soo maray in dadka kale ay ka faa'iideystaan iyadoo qofkii aan la ogaaneyn in la sheego ma xuma. Xaliima, gabadhaan u bixinay Xaliima Yaray, markay uur qaadaba waxaa ku dhaco sokor way ku dhaco. waanagii ku jirnay cuduradii sokorta oo haddana maanta waxaynu kaga faa'iideysanaynaa sokorowga xilliga uurka yimaado, xamliga markuu jiro oo loo yaqaano gestational diabetes. af Soomaaliya wuxuu ku noqonayaa waa sokorowga timaada xilliga uurka. Xaliima horey ayaa loogu sheegay markuu uurkii hore ay qaadayba sokor ayaa ku dhici jirtay. marka daawo lama siin jirin, cuntada ayaa lagala talin jiray waxyaabaha sokorta kiciya inay iska yarayso, inay cunto wanaagsan oo dheelitiran oo caafimaadkeeda u wanaagsan, habkay u nooshahay inay wax ka bedesho ayaa lagula talin jiray. markaan uurkii ugu dambeeyay ay qaaday sidoo kale waa lala taliyay in ay cunto dheelitiran ay qaado, ay isticmaasho si sokortii aan u kicin. sokorta haddii ay kacdo xilliga uurka oo gestational diabetes uu yimaado, dhibaato waxay gaarsiinaysaa hooyada iyo ilmaha uurka ku jira, labadaba dhib ayay gaarsiin kartaa. marka la gaaro fooshana waxaa dhici karta in fooshi ay aada ugu xanuunsato oo ilmihiina ay ku dhibtoodaan, ama xeer ay gaaraan in dhibaato ay gaarto maskaxdooda ama jirkooda, ama ayba dhintaan. hooyadana sidoo kale dhibaato ayaa gaari karto oo kala duwan, marba heerka sokorteeda ay tahay ayay ku xiran tahay. haddii sokorta aan la kontroolin oo aan la dejinin, waxaa dhacaysa ilmaha culeyskoodii inuu aad iyo aad u weynaado oo microsomic baby, ilma aad u weyn ayaa meeshii ka imaanayo, oo waxaa dhib noqonaysa inay soo maraan kafkii, inay kasoo gudbaan kanaalkii dhalmada. marka gabadheena aan usoo noqono Xaliima Yaray, uurkani wuxuu noqday mid wax kastoo la sameeyaba, talo kastoo la sameeya aynu sokorta ku degaynin. waxaa la yiri iska yaree waxyaabaha sokorta kiciya, cunto dheelitiran oo caafimaadka u wanaagsan isticmaal, xoogaa yar soco, wixii oo dhan way samaysay, laakiin weli way kacsan tahay. sokorta way kacsan tahay, ilmihiina way sii korayaan. marka takhaatiirtii waxay kula taliyeen in ay isticmaasho insulin. Xaliimana weligeed mayn maqlin insulin waxa la yiraahdo, oo way la yaabtay maxay tahay insulin. insulin waxaa la yiri waa hormoon jirka uu soo daayo, qofka caadiga uu soo daayo, laakiin marka qofka sokortiisa aad u kacsan tahay oo waxyaabihii kale ayna wax u taraynin, ayaa loo baahdaa in insulin la isticmaalo. daawooyinka afka laga qaato xilliga uurka lama isticmaalo, waxaa markaa la doorbidayaa in la isticmaalo insulin. iyada ayaa u roon ilmaha oon dhibaato gaarsiinin. daawooyinka kale oo afka laga qaato uma wanaagsano, sidaa darteed takhaatiirtu kuma taliyaan in la isticmaalo daawooyinka afka laga qaato, oo waxaa lagu taliyaa in insulin la qaato. Xaliima Yaray waxay tiri bal waan soo fikirayaa oo reerkeenii iyo eheladeeda ayaan la soo tashanayaa. dib ayay ugu noqotay dadkeedii, reerkeedii, caruurteedii, kuwii roonaa iyo walaalaheed iyo dariskeeda iyo asxaabteeda iyo qofkay taqaano ayay warstay. bal ii warrama insulin maxay ahayd. qof walba way wareysataa oo ay taqaano. dadkiina waxay yiraahdaan badankooda waxay isku raaceen in ay dhibaato gaarsiinayso jirkeeda, inay dhibaato gaarsiinayso insulinta, keliyaheeda inay maaragtay ka xirayso oo hadhow loo baahnaan doono in laga dhaqo,
sidaa darteed aynan u dhowaanin taladoodana aynan qaadanin meeqa qofaan arki jirnay oo sokor lagu sheego oo haddana iska fiicnaada iyaga iyo ilmahoodaba adiguba horey baa lagugu sheegay lagumana siin jirin insulin ee hadda maxaa keenay in lagu yiraahdo insulin isticmaal nin buka boqol u talisay dadkii badankoodii sidaa ayay isku raaceen iyadiina talada ayay qaadatay oo markii takhaatiirtu ku noqotay waxay tiri aniga insulin habeen ima soo marto maalin ima soo marto wax aan yeelaya ma jirto ee wax kale aad sheegaysaan oo sheega qasab ma jiro xaliimo yaray waa qof meel qabta oo go-aankeeda gaari karta daktarkana ma qasbi karo iyadii ayaa lala taliyey waa lagu celceliyey af ingiriis daadan garanayn waxaan ku wacaynaa turjumaan baa loo keenay oo ingiriis iyo soomaali yaqaano waa loo sheegay dhibaatada dhici karta waa loo caddeeyey way diiday waa lasoo marsiin waaye uurkii wuu sii socday markii dambe waxay gaartay in ilmihii xaaladoodii ay kasii darto oo uu aada usii weynaado xilligii fooshi markii la yimaadayna isbitaalkii bay timid waxay riixdaba wax walba waa la isku dayday cunugii wuu soo dhaqaaqi waayo waxay noqotay markaa iyadoo sokortina kacsan tahay si deg deg ah ayaa la yiri noloshaada si loo badbaadiyo sokortaada cirka bay maraysaa 400 500 600 ayay sii socotaa waxaad khatar ku sugan tahay inaad kooma gashid sidaa darteed waxaa ku wanaagsan in hadda aynu kugu darno si deg deg ah haddii kale noloshaada ayaa khatar galaysa reerkeedii iyadii go-aanka markaa haddii ay xaaladdu heerkaa marayso way ogolaadeen insulintii ayaa lagu diray goormee lagu diray waa markii ugu dambeysay oo ay foolanaysay si markaa loo dejiyo sokorteedii oo aynan kooma u gelin laakiin ilmihii way soo dhaqaaqi waayeen sababtoo ah aada buu u weynaaday kafkiina ma soo mari karo kanaalkii dhalmadana kama soo bixi karo taa waxay keentay in la yiraahdo si adiga iyo ilmahaba loo badbaadiyo waxaan u baahannahay inaan ku qalno in C-section in la isticmaalo oo si ilmaha loo soo bixiyo adiga ilmahaba laydin badbaadiyo waxaa markaa samayn kartaan sameeya ayay tiri takhaatiirtii ayay isku dhiibtay markay aragtay in nolosheedii ay khatar ku jirto muddo 12 saac ka badanna ay riixaysay horeyna ilmay usoo dhashay fool saas ahna weligeed ma soo marin oo muddo ka yar ayay ku dhali jirtay markii la qalay oo ilmihii lasoo bixiyey alxamdulilah ilmihii waa maaragtay wax yar kadib wuu iska qayliyey oo neeftii way kasoo go'day waxaa la geeyey maaragtay meesha ilmaha lagu xanaaneeyo wuxuu u baahday in xoogaa cinaaya zaa'id la siiyo oo intensive care neonatal unitkii ayaa la jifiyey laakiin iyadii ayaa maaragtay sokorteedii weli ay kacsaneyd waxay u baahatay in si fiican loo dejiyo meeshii maaragtay la qalayna waxay noqotay inay xirmi weyso way xirantay laakiin way kadib muddo kadib way furantay oo way bogsan weyday waxaa markaa lagula taliyey in isbitaalka ay muddo ku jirto oo lagu daaweeyo lagu dhayo si markaa ay maaragtay iyadoo meeshii u bogsatay meeshii la qalay dhaawacii bogsaday markaa gurigeeda u aado muddo badan ayay qaadatay kadib waxaa la yidhi isbitaalka kuguma hayn karno laakiin waxaan ku geynaynaa meel kale oo ka duwan cinaayad ka hooseysatan isbitaalka oo nursing home oo kale ah meesha dadka waayeelada lagu xanaaneeyo qof dhalinyar xataa haddii uu u baahdo waa la geeyaa meesha ayaa la geeyey oo ilaa waxay qaadatay 3 bilood in meesha lagu hayo oo intii nabarkii dhaawacii uu ka bogsanayo meesha lagu hayo alxamdulilah bacda tacab wa shidda muddo dheer kadib waxaa dhacday in ay maaragtay xaliimo ay soo ronaatay oo nabarkii dhaawiciina u bogsaday gurigeediina ay kusoo noqotay markaa ayay ii warantay iyadoo aan garan waayo oo culays badan ka lumay oo qofkii maba ahanbo waxay tiri war ma haysid dhibka ayaa igu dhacay dadkii aan la tashtayna tala xun bay siiyeen takhaatiirtii markii hore haddii maalintaa aan yeeli lahaa
dhibkaan oo dhan ma soo mari lahayn aniga iyo ilmahayga dhibkaan ma mari lahayn oo waxaa fiicneed inaan dhagaysto laakiin mar dambe ayaan u noqonayn oo talada dhaqaatiirta hadday insulin sheegaan iyo waxay yidhaahdaanba waan yeelaya marka insulintu si aan looga cararin markii ay noqoto dan hadday keento dani waa seeta baa la yiri haddii aad u baahato waad qaadanaysaa haddii uur uu jiro waa maaragtay oo sokorta la dejin waayo daawo afka laga qaato kale khiyaar kale ma jiro oo insulin kaliya ayaa jirta noocyo badan ayay u jirtaa waa dheecaan waa hormoon uu soo daayo pancreaska qayb maaragtay kuwa dadka la siiyo waa mid tartiib u shaqaynayso oo lantus ama glargine la yiraahdo qaybo kale noocyo kale oo degdeg ah ayaa jiro iyo kuwa dhexdhexaad ayaa jiro shaqadooda marka magacoodana meesha ayaan screenka aad ka akhrisan kartaan marka waxaan idinkugu sheegay qisadan in dadkii kale ama gabdhihii kale Soomaaliyeed ama qofkii Soomaali fahmayaba uu ka faa'iideysto in haddii xilli uur lagu sheegay oo sokor hadan ay ku dhacdo gestational diabetes oo sokortii ay day weyso wax kasta oo la sameeyo marka khiyaarku uu noqdo in insulin la qaato inaan la diidin insulinta kaliyaha dhaawaci maysa haddii qiyaastii loogu talagalay laga qaato kaliyaha waxay dhaawacamayaan marka la qaadan waayo sokorti kacdo ayaa kaliyaha dhaawacayso taariikhda shakhsigaas aan idin sheegay waxaan idinkugu sheegay waa in laga faa'iideysto taariikhda dadka ku dhacda qisooyinka soo mara dhibaatooyinka soo mara in laga faa'iideysto ayaa fiican oo haddii qofka uu ku warramo ama si kale aad ku ogaato ama dad kale uu usoo tabiyaba in maaragtay laga faa'iideysto iyaduna waxay ku faraxsan tahay in dhibaatadii soo martay ay la wadaagto dadweynaha Soomaaliyeed haddii aan laga faa'iideysan taariikhda waxyaabihii soo maray waayihii dhacay qaladaadkii hore u dhacay haddaan laga faa'iideysan qofkii wuxuu ku qasbanaana haddana in uu soo celiyo kuwa dadka aan taariikhda akhrin ama aanan ka faa'iideysanin waxay sameeyaan qaladaadkii oo kale marka waxaan idinkula talin lahaa in maaragtay dhibaatooyinka la sheegayo markaad maqashaan waxa sababay markaad maqashaan inaad ka foojognaataan oo aad ku cibro qaadataan waxaa guuleystay oo liibaanay qofkii qeyrkiisa ku cibro qaata intuu adiga dhib ku soo gaarin haddaad maqasho qof kale dhibkaas ku dhacay sidaa buu yeelay wanaag hadduu sidii la rabay oo wanaagsaneed hadduu sameeyana oo natiijo fiican ay ka soo baxdo ku dhaqan haddii maaragtay uu khalad sameeyana khaladkiisii oo kale adiguna ha ku soo celinin oo ka leexo si maaragtay tubta toosan aad u raacdo intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Dr. Minow dabiib yaqaan oo aynu kaga hadlaynay sokorowga xilliga uurka ama gestational diabetes وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم